habeen wanaagsan saaxiibada ku xiran channelkeena YouTube ee Galka Media iyo sidoo kale barteena Facebook ee Galka Media war degdeg ah oo goordhowna soo gaaray ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin dacwo laga gudbiyay iyo maxkamadda ciidamada oo qabatay dacwadaasi waa sidee xaalka Fahad maxaad kala socotaa ciidamada loo diyaariyay Fahad Yaasiin inay gacanta ku soo dhigaan xaalka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday xilligan muxuu wajahayaa ehelada Ikraan maxay ka yiraahdeen ciidanka loo diyaariyay in ay qabtaan Fahad Yaasiin xogahaasi oo dhameystiran ayaad caawa kaga bogan doontaan warbixinteena Galka Media balse marka hore daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa in barteena Facebook ee Galka Media subscribe aad dhahdaan sidoo kale gambaleelka aad furataan si aad u heshaan xogaha degdega ee aan halkan soo gelino sidoo kale like saar oo follow dheh page-keena Galka Media ee Facebook warbixintana u sii share gareeya saaxiibadiina kale mahadsanidin waa tahay habeen wanaagsan saaxiibada nagu xiran beesha caalamka iyo waliba beesha ay ka dhalatay Ikraan ayaa xeerlaalinta iyo maxkamadda ciidanka u gudbisay dacwad ka dhan ah Fahad Yaasiin Kulanajiis iyo Yaasiin Farey laakiin madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa ku qanciyay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan in la dejiyo markaa qorshaha senatarka looga dhigayo inta aysan maxkamaddu u yeerin Fahad Yaasiin xogtaasi waxa ay markaa sidoo kale tilmaamaysaa in gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle gudoomiye Cabdixakiin uu aad uga cagajiidayo maadaama kiiska la isku hayo iyo gabadha Ikraan Tahliil ay qaraabo yihiin gudoomiye Luqmaan oo aad u aaminsan agaasimihii shaqada laga eriyay ayaa markaa u howlgalay dardargelinta iyo kameradhalinta howlahaasi balse xogtaasi ilaa iyo hadda lama hubo sida ay dhinacyo badan oo jawhar ku sugan ay xaqiijinayaan dhanka kale madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa qoyska ay ka dhalatay ee Ikraan Tahliil kula gorgortamayo qiimo kasta oo ay ku kacayso si aan markaa magaciisa loogu xusin kiiska Ikraan Tahliil una markaa aqbali doono xilka qaadista Fahad Yaasiin balse ra'iisul wasaare Roble oo xilligan markaa u tafaxaytay sidii cadaalad ay u heli lahaayeen qoyska Ikraan ay ka dhalatay ayaa xilligan la soo wariyay in qorshahaasi uu ka biyadiiday qaraabada Ikraan qayb ka mid ah ayuu markaa la hadlay Farmaajo isagoo leh hooyada dhashay Ikraan magacayga ha ka reebto oo warbaahinta yeysan markaa ka sheegin inaan kiiskaasi ku lug leeyahay xogtaasi ayaa sidoo kale qayb ka ah waxyaabaha saacadihii aynu ka soo gudubnay aanu xuuraaminay haddii ay maxkamaddu hesho cadeymo ku filan iyo marqaati iyo wixii la mid kiiskaasi quseeya sharciga waxa uu markaa awoodaa in Fahad loo yeero haddii maxkamadda laga waco Fahad Yaasiin Fahad Yaasiin CIAda iyo waliba CIEda ee markaa dhinacyada inta badan waxa ay markaa xaqiijinayaan in ay markaa u diidi doonto warqadda dambi la'aanta ka hor musharaxnimadiisa xogtaasi ayaa sidoo kale qayb ka ahi laakiin dhibaatada taagan ayaa ah in Luqmaan oo hogaamiyaha baarlamaanka Hirshabelle Ikraan markaa matalo uu markaa ku dadaalayo in xildhibaan aqalka sare laga dhigo Fahad inta aysan maxkamaddu u yeerin dhawaan sida la filayo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo shuuto hogaamiye ayaa u yeeraysa Fahad Yaasiin sida ay markaa xoguhu nagu soo gaarayaan balse dhinaca kale waxaa caawa magaalada Muqdisho lagu diyaariyay ciidamadii gacanta ku dhigi lahaa Fahad Yaasiin kuwaas oo durbaba markaasi bilaabay abaabulka ay xilligan ugu jiraan sidii Fahad kiis dacwadeed markaa oo maxkamad madani oo dhanka ciidamada iyo sidoo kale qayb ay ka tahay loogu soo oogi lahaa maadaama gabadha la dilay ay dowladdu markaa u shaqaynaysay sida markaa xogaha nagu soo gaarayaanna ciidamo badan ayaa xilligan markaasi lagu daadiyay qaybta uu markaa magaalada Muqdisho ka degan yahay Fahad Yaasiin madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu xilligan xaalku si aad ugu xun yahay sida ay xoguhu tilmaamayaan balse xogta aynu helino ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ra'iisul wasaare Roble uu wali markaa ku adkeysanayo sidii qoyska Ikraan cadaalad ay u heli lahayd balse arrinkaasi uusan ka gorgortami doonin waxaana la soo warinayaa in sidoo kale qayb ka mid ah golaha wasiirada ay qayb ka yihiin qorshaha lagu maxkamadeynayo Fahad Yaasiin maadaama 4 sano aynu ka soo gudubnay uu caqabad ku ahaa fulinta howlaha hay'adaha dawladda sida ay markaa tilmaamayaan xubno ka mid ah golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Roble
xogaha sidoo kale la helayo ayaa waxaa qayb ka ah in madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo nuqul markaa ka mid ah sida aan xogta ku helnay liiska xildhibaanada aqalka sare u tartamayo aan iyadoo qoraal idinkula wadaagnay page-keena Facebook ee galka media ayaa xilligan lagu cadaadinaya in uu ka reebo liiska musharaxiinta aqalka sare Fahad Yaasiin taas oo la rumaysan yahay in dhabarjabin siyaasadeed uu mar kale la kulmayo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba Farmaajo xaalkiisa doorashada halkee ayuu ku dambeyn doonaa? warar madax bannaan oo ay helayso galka media ayaa xaqiijinaya in markaa wararka isa soo taraya ee ah in markaa Fahad la maxkamadeeyo xilligan ay rajabeel ku ridi karto dib u doorashada uu filanayo Farmaajo. xogaha sidoo kale la helayo ayaa waxa qayb ka ah oo markaa xilligan xogta ay tilmaamaysaa in uu doortay in kiiskan iyo waliba si ay markaa meesha uga baxdo Fahad Yaasiin in uu qabto xil kale taas ayaa la rumaysan yahay. haddaba muxuu ugu haray tartanka xildhibaanka ee golaha shacabka ee kursigiisa uu yeelo beledweyne Fahad Yaasiin? xogtu waxa ay markaasi tilmaamaysaa in Fahad haddii uu ciidamo walba wata uusan ku noolaan karin magaalada beledweyne taas oo la rumaysan yahay in ehelada gabadha markaa Ikraan Tahliil ay ka soo jeedo ay halkaasi ku badan yihiin cabsi iyo baqdin awgeed ayuuna markaa uga haray u tartamidda kursiga golaha shacabka. haddaba daawade maxay kula tahay qorshahan inuu markaa ku hergeli karo? yaad isleedahay xilligan wuu fududeynayaa maxkamadeynta ee markaa Fahad Yaasiin oo loo haysto dilka Ikraan Tahliil? fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag aragti ahaan waxa aad ka qabto. haddaba miyuu kula muuqdaa kiiskan sidoo kale in uu guuleysan doono oo ehelada Ikraan ay heli doonaan cadaalad? fikirkaaga isla qaybtaasi inagula wadaag guud ahaanba kiiskan iyo waliba waxa uu ku dambeyn doono. sidoo kale warbixinadan u sii sheergareeya saaxiibadiina kale si aan mar walba halkan idinkugu soo gudbino xogaha degdega ahay. hana naga ilaawina inaad rukumataan barteena YouTube ee galka media. mahadsanidin.